Dowladda Federaalka iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta shir yeeshay. Siihayaha ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Mahdi Maxamed Guuleyd ayaa gudoomiyay shir u dhexeeyay dowladda Federaalka Soomaaliya iyo wakiilada beesha caalamka oo maanta ka dhacay Muqdisho. Shirkan oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha amniga, dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda. Mudane Mahdi ayaa sheegay sidoo kale shirka in lagu lafaguray qorshaha ay ciidamada Soomaaliyeed kula wareegayaan amniga dalka iyo wadooyinkii arrintaasi loo mari lahaa. Shirkani ayaa lagu bogaadiyay horumarada dowladda Federaalka Soomaaliya gaartay muddooyinkii la soo dhaafay iyo joogteynta iyo xoojinta wada shaqeynta dowladda iyo saaxiibada beesha caalamka ee Soomaaliya taageera.